Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaa soo koobaynaa filim Indonesian drama ah kaasoo lagu magacaabo Two Blue Stripes. intaana filimkeena u gudagelin waxaa kaa codsanaynaa inaad janaalka subscribe noo saarto, like waa noo dhiirigelin, fikirkaagana halka hoose nagula wadaagto. mahadsanid. filimkeenu waxa uu ku bilaabanayaa Deera iyo Bima oo isku meel fadhiya fasalka dhexdiisa, halkaas oo natiijada loo sheegayo. Deera waxa ay keentay buundo fiican halka Bima uu keenay buundo hooseysa. maclimadu waxay u sheegaysaa Deera in uusan ag fariisan doonin hadduusan buundo fiican keenin. ciyaalku waxa ay ku camiranayaan Bima waxayna u sheegayaan inuu shukaansi ku mashquulsan yahay. intaa kadib waxa ay joogaan Deera sariirteeda. Deera waxa ay u marinaysaa make up ayaga oo sawir iska qaadaya. intaa kadib waxay isku dayaysaa in ay sawir ay la gashay Instagram ka dhigto. waa uu diidayaa. waxa uu isku dayayaa in uu ka xoogo mobilka si aysan u soo dhigin. intaa kadib caadi bay noqonayaan. filimkeena shaashadiisu waa ay madoobaanaysaa. waxaana arkaynaa filimka magaciisa oo kooban. intaa kadib waxaa arkaynaa ayagoo isku sariir jiifa. Bima waxa uu weydiinayaa haddii ay dareemayso xanuun, laakiin waxa ay ku dhahaysaa cidna waxba ha u sheegin. waxa ay aadayaan casho saaxiibadood, laakiin Deera waa ay cuni weynaysaa. matag baa qabanaya, banaanka ayayna uga soo baxaysaa. intaa kadib guriga ayay kusoo laabteen ayaga oo Deera hooyadeed u sheegaya inay cuntada xumayd. intaa kadib Bima waa uu baxay. kadib hooyadeed waxay u sheegaysaa in ay is-shukaansadaan ugu yaraan sanad, laakiin waxa uu u sheegayaa in ay saaxiibo kale yihiin. walaasheed ayaa wax ka codsanaysa, laakiin waxa ay ku dhahaysaa jawi fiican kuma jirtid, waa la gaaray waqtigaagii caadada, taas oo shaki ku abuurtay Deera. waxa ayna u sheegaysaa Bima in ay iska shakisay. Deera waa ay isbaaraysaa, waxayna ogaanaysaa in ay uur leedahay. Deera waa ay kasoo daba ordaysaa. Bima waxa uu kasoo tegayaa mootadiisa, waxa uuna kasoo raacayaa bajaaj. waalidku waxa uu weydiinayaa sababta uu mootadiisii uga soo tegay una soo raacay bajaaj. waa ay cadaadiyeen, waa uuna ooyay Bima, laakiin waxa ay ka shakiyeen in ay tahay arrin gabar la xiriirta asaga oo qalbi jabay. laakiin aabihii ayuu la hadlay si hoose, waxa uuna u sheegay in uu qalad sameeyey. laakiin aabihii waxa uu sheegay inuu raaligeliyo Deera, ayadana geeyo meel dhakhtar ah si ilmaha ay iskaga soo xaaqdo. markii uu u yimid una sheegay arrinta way aamusaysaa, waxayna kasoo xiranaysaa albaabka. isagu waxa uu weydiiyey asxaabtiisa meesha uu yahay dhakhtarka, asaga oo u sheegay in ay tahay assignment looga soo diray. kadib waxa ay imaanayaan goobta dhakhtarka, laakiin Deera waxa ay arkaysaa naag, laakiin waxa ay dareemaysaa wax kasta inaysan saxnayn, iyada oo banaanka uga soo ordaysa, iyada oo taabsiinaysa in uu gacantiisa ku qabto caloosheeda in uu wax dareemayo. waxayna u sheegaysaa in ay dareemi jirtay markasta oo hooyadeed caloosheeda taabato markii ay iyadu siday cunugta ka yar. waxa ay u sheegaysaa in aysan awoodin in ay iska soo rido ilmaha. waxa uu sheegayaa inuu garabkeeda markasta yahay, sidoo kale ay qarinayaan ilmaha ilaa ay waxbarashada ka dhammaynayaan. sidoo kale waxa uu sheegayaa in ay xirato dhar waaweyn si ay u qariso caloosheeda, laakiin waxa ay ku dhahaysaa ka waran haddii uu waalidkeen ogaado. waxa uuna u sheegayaa in ay marka hore ku qaylin doonaan kadibna ay iska dayn doonaan. Deera waxay u sheegaysaa hooyadeed inay iskuulka aadi doonin sababtoo ah inay xanuunsan tahay. Bima xaafadda ayuu kusoo booqday, waxa uuna u keenay dhar ay xirato haddii ay caloosheeda weynaato. waxa ay ka walwalaysaa mustaqbalkeeda iyo inaysan aadi doonin jaamacadda ay jecleed ee ku taalla Kuuriya. waxa uu u sheegayaa in ay wax kasta hagaagi doonaan, uu isaguna ka shaqayn doono. maalintii xigtay wiilal banooni ciyaaraya agtooda waxaa fadhiyay gabdhaha kuna sheekaysanayay. si kadis ah waxa ugu dhacaysa Deera kubadda, waxa ayna dareemaysaa wareer. Bima ardayda iyo macalinku waxa ay weydiinayaan inay caloosha xanuunayso, balse waxa ay dhahaysaa waxaan ka walwalayaa ilmaha. qof kasta oo goobta jooga waxa uu ogaanayaa sirta labadooda, waxaana la wacayaa labadooda waalid, waxaana lagu yeerayaa iskuulka ayaga oo loo sheegayo in ay wax jiraan. Deera hooyadeed waxa ay weydiinaysaa in la khasbo, laakiin Bima waalidkiis waxaa ku jirta deganaan. waxa ayna u sheegayaan waalidka kale in ay wax kasta hagaagi doonaan, caadina noqon doonaan, ayna qaadayaan mas-uuliyadda. waxa uu sheegayaa in uu daryeeli doono Deera iyo cunuga marka uu iskuulka dhammeeyo, shaqana uu horay ka bilaabi doono. Deera hooyadeed waxa ay dhahaysaa waa inuu hadda Bima qaado mas-uuliyadda, wayna ka baxaysaa iskuulka. waxa uu isku dayayaa inuu xalka dejiyo gabadha aabaheed, laakiin hooyadu ay
ka niyad jabsan tahay. Biima waalidkiis waxa ay soo kaxeeyeen Deera ayaga oo keenay gurigooda kaasoo ula mid ahaa midkeeda oo kale. Waxa ay Deera la hadashay Biima hooyadiis iyada oo u sheegtay in ay wax yar caloosha xanuun ka dareemayso. Habeenkii markii la gaaray Biima waxa uu imaanaya asaga oo cunno sida. Waxa uu sheegayaa in uu gurigoodu yar yahay, sidoo kalena waxa kale uu sheegayaa in ay deriskooda xoogaa buuqayaan. Deera, Biima iyo waalidku waxa ay aadayaan dhakhtarka in ay fiican tahay. Biima waxaana loo sheegayaa in ay fiican tahay. Biima hooyadiis waxa ay weydiinaysaa waxa keenay caloosha inay xanuunayso. Waxa ayna u sheegayaan in laga yaabo in ay tahay ilmaha oo si qaldan ugu jira. Waxa ay u sheegayaan Deera in ay nasato aysan walwalin, sidoo kale inay Deera u baahan tahay qof caawiyo welina ay yar tahay, culayskeeduna uu laba jibaar ka badan yahay culayska dadka caadiga ah. Sidoo kale waxay u sheegayaan in ay cunto nafaqo leh, sidoo kalena ay barato waxyaalaha uurka ku saabsan. Deera waalidkeed dib ayay ugu soo noqdeen ayaga oo u sheegaya inay Deera gurigooda u kaxaysan doonaan. Deera hooyadeed waxa ay soo fiirinaysaa iyada oo ula ekaanaysa qof yar oo markasta u baahan qof daryeela. Deera waxa ay la kulmaysaa walaasheed ka yar, waxa ayna weydiinaysaa in ay waalidkeed isla soo hadleen inta ay jidka soo socdeen. Waxa ayna ku dhahaysaa maya. Waxa ayna u sheegaysaa in habyarteed iyo abtigeed yimaadeen shalay dheheenna inay doonayaan inay korsadaan ilmaha yarka ah. Deera waa ay weydiinaysaa arrinkaas wax inay ka jiraan. Hooyadu way u sheegaysaa inaysan weli diyaar u ahayn in ay noqoto hooyo, waalidnimaduna ay tahay mas-uuliyad. Laakiin Deera waxay u sheegaysaa haddii ay saas tahay inaysan meel cidla ah uga soo tagteen. Sidoo kale waxay u sheegaysaa inay Biima u sheegi doonto sababtoo ah asagu waa waalidka ilmaha. Biima waxa uu caawimaad weydiistay aabihiis, hooyadiisna waa ay ku raacday. Waxa ayna dhahday in ay banaanka la istaagi weyday xanta deriska iyo waxa qoyskooda ay ka sheegayaan. Laakiin Biima aabihii wuu diiday, laakiin ugu dambeyntii wuu iska aqbalay in uu la hadlo Deera waalidkeed. Biima walaashiis ka weyn ayaa u imaanaysa iyada oo niyad jabsan kana walaacsan mustaqbalkeeda guurka, waxa uu ku dambeyn doono iyo waxyaabaha ay ka aamini doonaan mustaqbalkeeda. Maalintii xigta Biima iyo qoyskiisu waxa ay soo raaceen gaari ayaga oo u soo socda dhanka Deera. Dhanka kale Deera hooyadeed iyada oo degdegsan ayay moobeelkeeda raadinaysaa. Waxa ayna rabtaa in ay baxdo. Ninkeedu waxa uu isku dayayaa inuu dejiyo, laakiin waxay u sheegaysaa in ay dan yar u socoto meesha dabaasha. Laakiin Deera waxay u sheegaysaa inay qoyska Biima soo socdaan weyne ay og tahay hooyadeed in aysan ka heli doonin. Laakiin wax yar ayay fariisanayaan fadhiga. Waxaa yimid Biima iyo qoyskiisa ayaga oo fariista qolka fadhiga. Biima aabihiis waxa uu ka raaligelinayaa ayaga waxa dhacay. Waxa uuna u sheegayaa inuu diyaar u yihiin inay isguursadaan ilmuhu. Muuqaalka xiga Biima iyo Deera oo isguursanaya ayaa arkaynaa. Hadda waa nin iyo xaaskiisa. Sidoo kale waxay u sheegayaan in ay bartaan qaabka dhalmada, kale u sheegayaan inay caawiso bare. Biima waxa ay u sheegaysaa in uusan iskuulka ka harin, laakiin waxa uu sheegayaa inuu ka hari doono. Deera waxay u sheegaysaa in ay online ka akhrisanayso in ilmaha hooyadood ka dhaxlaan caqliga. Biima waxa uu ku raacayaa arrinkaas. Iskuulka ayuuna dib ugu laabanayaa. Biima aabihiis ayaa sheegay in uu banaanka jiibsado halka uu ka helay fadhi. Sidoo kale waxaan arkaynaa inuu iskuulka ku laabto. Biima aabihiis waxa uu u soo helay shaqo maqaayad, halkaas uu kabaryeeri ka noqon doono, alaabtana ka dhaqi doono, halka Deera waxbarashadeeda inay sii wadato ay rabto. Muuqaalka xiga Biima waxa uu ciyaarayaa game halka Biima caloosheedu ay sii weynaanayso. Waxayna u sheegaysaa inay ogaatay inuu iskuulka aadin, halka uu u sheegayo inuu rabo inay yeeshaan guri gaar u ah, mana ay joogi karaan guriga waalidkood intaa inka badan. Waa ay isku xanaaqeen. Deera waxa ay fadhidaa qolka fadhiga. Hooyadeed baa timid. Biima waxa uu salaamay hooyadeed, waxa uuna u sheegay in uu aadayo guriga hooyadiisna u yeertay. Deera saaxiibadeed ayaa u imaanaya ayaga oo aadaya dukaamaysi, markaas oo ay ogaanayso in ay isbedel ku dhacay jirkeeda sababa la xiriira uurka. Waxa ay u sheegaysaa hooyadeed in ay hooyadiis dejinayso oo ayna jiifsanayaan. Ilmaha ayaa harantinaya caloosha maamada. Waa ay ku farxaysaa waana ay u heesayaan. Waxa ay u tagayaan dhakhtar halkaas oo lagu saarayo kombiyuutar loona sheegayo in uu fiican yahay ilmuhuna uu yahay wiil. Intaa
kadib waa ay kulmayaan, waxa ayna u sheegayaan in hooyadeed iyo qaraabadeed mar dhow ay soo booqan doonaan, waxayna la kulmayaan in ay korsadaan ilmaha. sidoo kale waxay u sheegaysaa asaga oo aan ka warqabin in aysan go'aan gaari doonin. waa ay la kulmeen ayaga, waxayna u eegayaan dad wanaagsan in ay yihiin. Bima ma rabo in ilmaha la siiyo qof korsada, laakiin Deera waa ay rabtaa. sidoo kale waxa ay rabtaa in ay rajadeeda rumayso oo ay aado jaamacadii ay jeclayd. ma ay rabto in ay ilmaheedu xayiraan. waxaa kulmay labada qoys, waa ayna isku khilaafeen arrintaas. Deera iyo Bima waxay qaateen waqti labadooda waalid ayaga oo go'aan ka gaaraya arrinkaas. Bima waxa uu soo aadaya Deera asaga u sheegaya in arrintu si wacan uga fakarto. Deera maskaxdeedu waa ay isbedeshay iyada oo sheegaysa ilmaheeda inuu u noqon doono Bima aabba fiican. warqad waxay u qoraysaa ilmaheeda mustaqbalka. waxa ay dhalaysaa ilmaha, laakiin xoogaa mushkilad ah ayaa jirta. waa in lagu qalo ilmaha. waxa uuna saxiixayaa warqadda iyada oo loo sheegayo in ay fiican tahay. waxaa u dhalanaya cunugooda, waxayna joogaan isbitaalka. intaa kadib Bima waxaa looga tegayaa ilmaha halka ay Deera aadayso jaamacadeeda. marka ay sii saaran tahay gaariga waa ay ismacasalaameynayaan oo faraha ayay isku taagayaan. filimkeeniina halkaas ayuu noogu egyahay. haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka, waxaa kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto, like-na nagu dhiirigeliso, fikirkaagana halka hoose nagula wadaagto. mahadsanid.